Araksan Village waa xaafad casri ah oo laga hirgeliyay magaalada Hargeysa. Waxaa dhismaheeda iyo hirgelinteeda iska leh shirkadda Capson Real Estate. Xaafadani waxa ay ka kooban tahay 66 guryo deegaan ah, kuwaasoo aad loo qurxiyay gudaha iyo banaankaba. Waxa uu leeyahay guri kasta 2 baakin, baranda weyn oo ku dhex taalla landscaping-ka guriga. Waxa kale oo uu leeyahay 2 balkani. Meesha ugu sarreysa ee gurigana waxaa loo qaabeeyay inay noqoto goob lagu nasto ama waqti lagu qaato, sidoo kalena dhulka quruxda badan iyo dhismayaasha ku hareeraysan qofku uu ka daawan karo. Waxa kale oo xaafadan ay leedahay goobo loogu talagalay bulshada halkaas ku nool, sida landscape. Landscape-ka macnihiisa waxa ay noqonaysaa waa goob la naqshadeeyay oo leh dhir iyo cagaar lagu beeray, sidoo kalena ay la socdaan goobihii biyaha lagu keydiyay sida booliska oo kale, kuwaasoo macnaha inta badan aad u qurxiyo guryaha iyo istarajarada. Sidoo kale goobahaas bulshada loogu talagalay waxaa kaloo ay leeyihiin garoomada ciyaaraha sida kubadda cagta iyo kubadda kolayga. Sidoo kale waxa ay leedahay xaafadan suuq dhammaystiran oo leh dukaamadii bulshadu ay u baahnaayeen oo idil, sida qudaartii iyo hilibkii, timajarihii, dukaamadii coffee shops-ka ahay, dukaamadii labiska iyo dharka, sidoo kale gym aad u weyn oo asna la qalabeeyay ayaa ku yaala suuqaas, iskuul weyn oo loogu talagalay dhallaanku inay wax ku bartaan. Sidoo kale xaafaddu waxaa ku yaal masjid weyn oo jamaacada halkaas ku nool loogu talagalay inay ku tukadaan, waxaana ku tukan kara ilaa 120 qof. sidoo kale isbitaalkii iyo goobihii caafimaad uu leeyahay. Dhanka security-ga marka la fiiriyana waxa uu leeyahay CC camera iyo waardiye heegan ah. Sidoo kale meeshaas waxa ay leedahay laamiyaal dhexmara xaafadaha. Haddii aan isla fiirino gudaha guryaha, waxaa arkaysaa in loo sameeyay interior design aad u qurux badan. Waxaanad ka arkaysaa qaabka coloriska iyo lighting ama laambadaha casriga ah iyo agabka wax lagu qurxiyo idil sida guriga loogu naqshadeeyay. Guryaha waxa ay leeyihiin living iyo dining room isku furan oo lagala jeedo fadhi iyo cunto aad u habaysan oo u dhammaystiran yihiin qalabkii loogu talagalay sida fadhiga, miiskii, dhaladii iyo setup-keedii oo welibana leh decoration qurux badan oo kuwa caalamka maanta loo sameeyo oo kala ah. Jikaduna sidoo kale waa mid model ah oo leh qaanadihii iyo accessories-kii kale loogu baahnay sida furniture-kii, sink-kii iyo wixii la midka ah, miisaskii looga baahnay iyo kuraastii. Qaybta sare waxa ay leedahay meel kale oo fadhi iyo nasiino iyo waqti lagu qaadan karo oo guriga gudihiisa ah. Qolalka jiifka oo gaaraya ilaa 6 oo uu ka mid yahay qolka la master room-ka oo suuligiisina leh. Sidoo kale musqulahana waa kuwa aad loo qalabeeyay, iyaguna naftirkoodu soo jiidashana leh, qalabkii ugu dambeeyay oo casri ahna loo isticmaalay. Xaafadaha noocan oo kale oo casriga ah inta badan waxaa laga isticmaalaa dunida horumartay, si tartiib ayayna dalkii u soo gaarayaan. Waxaana shaki ku jirin in qayb aad weyn ay ka qaataan koriimaha iyo kobaca dhaqaale ee waddan uu leeyahay. Sidoo kalena waxa ay qayb weyn ka qaataan soo jiidashada dadyow fara badan oo ku nool gudaha dalka iyo dibaddaba, kuwaasoo aad u jecel amaba la dhacsan style-ka iyo quality-ga iyo naqshadaha nooca guryahan oo kale ah.